إذا تأخر مطلب hagaag dhanka Mareykanka ayaan aadaynaa walaalayaal. Mareykanka kan ugu weyn dadka u sharaxan xilka madaxweynenimada ee dalka Mareykanka Donald Trump wuxuu kiciyay qadiyooyin islaamka cadow ku ah. Sikadiis ah walaalayaal, xamladani dacmi iyo taageero aad u weyn ay shacabka ka Zakir Naik, adiga maxaad u maleynaysaa inay arrintan ka dambayso? Maxaad ku tilmaamaysaa arrintaas? anigu waxaan rumaysanahay qof kasta oo caan ah inuu cadow yeelanayo. waxaan aaminsanahay qof kasta oo caan ah inuu cadow leeyahay. Alle Quraanku wuxuu ku sheegayaa in nabi kasta uu cadow leeyahay. Muhammad sallallahu alayhi wasallam ahaanshadiisa rasuulkii ugu dambeeyay cadow ayuu yeelanayaa. Haddaba waxaan dareemayaa dadkaasi sida Donald Trump oo kale waxay sugayaan saxiixnimada Quraanka. Alle wuxuu ku leeyahay suuratul Furqaan waa suuradda 25aad in acdaa uu yeelanayo nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. in dad cadow ku ahaan doona nabi Muhammad ay jiri doonaan sallallahu alayhi wasallam. laga yaabo risaalada nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam markii horeba inay waajib ahayd in ay yeelato dad cadow ku ah kana soo horjeeda islaamka iyo nabigaba. haddaba dadkaasi waa sida Donald Trump oo kale waxay sugayaan saxiixnimada Quraanka. waxaasi oo idil iyagoo jiraana islaamku waa u faafaya. Alle wuxuu Quraanka ku leeyahay suuratu Al-Imraan suuradda 3aad aayadda 4 waa ay dhakreen allana wuu abaal mariyay. alle ayaana u wanaagsan kuwa wax abaal mariya. haddii aad daawatay dhacdooyinkii 11 Sebtembar kadib dagaal caalami ah ayaa islaamka lagu waday. caalamka oo dhan dagaal caalami ah ayuu islaamka ku waday si iska dabiici ah. dadku waxayba ka soo qaadeen oo ay aamineen in diinta islaamka ay u dhamaatay dagaalkaas kadib. laakiinse waxaan helaynaa maanta dad aad u fara badan ayaa doonaya inay diinta islaamka wax ka ogaadaan. waxaan helaynaa Mareykanka oo kaliya 9 bilood kadib dhacdadii 11 Sebtembar 34,000 oo reer Mareykan ah ayaa diinta islaamka galay. Yurub oo kaliya 10 bilood kadib dhacdooyinkii 11 Sebtembar wax ka badan 20,000 oo reer Yurub ah ayaa diinta islaamka galay. haddaba markastoo isku dayaan inay islaamka weeraraan markaas islaamku aad ayuu u sii faafayaa. anigu waxaan aaminsanahay dadka noocaan ah si aad iyo aad ah diinta islaamka ay u faa'iideynayaan oo ay faa'iido u leeyihiin. maxaa yeelay dadku markaas waxay ogaanayaan diintan oo waxay doonayaan inay wax badan ka ogaadaan. marka dadku ay soo weeraraan islaamka waxaad ogaanaysaa in arrintaasi ay islaamka faa'iido u leedahay. hagaag waa arrin wanaagsan. Dr. Zakir Naik ma igu waafaqsan tahay haddii aan dhaho muslimiinta dadaalka ku bixinaya inay suuradda islaamka soo celiyaan sababta argagixisnimada islaamka ee dhanka reer galbeedka arrintaas waxay sabab u noqotay mal dhihi karaa in dhaqankii sareeyay ee islaamku ay dadku ka tageen oo ay hilmaameen. waan kugu waafaqsanahay dhowr mar. annaga muslimiin ayaan nahay mararka qaar caadifad ayaana qaadaysa. tusaale ahaan waan ognahay wixii dhacay markii la sameeyay sawirada Denmark. qalad ay dadka muslimiinta sameeyeen. hay'ado badan oo islaamiga ayaa camalkoodii ka tagay. arrintaas ay dilil ka dhiganayeen. waa la rabaa taas inaan dililsano laakiin si camalkeena wanaagsan inaan ka tagna maaha. dhammaan waxay muhiimadda siiyeen inay radiyaan sawirada reer Denmark. 5% oo kaliya ayaa shaqeynaysay hay'adaha islaamiga ah. haddaba malayso haddii dhammaan hay'aduhu arrintaas oo kale ay sameeyaan ummadda muslimiinta qasaare ay ku noqon lahayd. waxa aan u baahanahay waxa weeye inay waajib tahay in la helo munadamaad iyo hay'ado u gaar ah arrintan oo kale. muxaadaro ayaan ka dhigay qaabka loola dhaqmayo arrintan oo kale. annagu waxaan sameynaa horta caadifad ayaan ugu dheehneed. hagaag annaga arrintaas waan ka soo horjeednaa laakiin lama rabo inaad qof caadifad ku dheehan aad noqoto adigoo joojinaya camal kasta oo waxtar u lahay ummadda muslimka. haddaba haddii islaamka la soo weeraro annaga camalkeena kama tegayno wax kasta oo islaamka u sameynayno. waxaan ka wadaa saan hore kuugu sheegaba qof kasta oo caan ah waxaa waajiba inuu yeesho dad ka soo horjeeda. tusaale ahaan oo kale haddii aad Google-ka ku qorto magacayga aad ku qorto waxaa jira ku dhawaad 15 milyan oo website oo macluumaadkayga wax ka qoray. 15 milyan ku dhawaad 15% ilaa 20% way iga soo horjeedaan. haddaba markuu qofku caan noqdo waxaa waajib inuu cadow yeesho. ugu horreyntiiba sidaan kuu sheegay waxay ku xiran tahay cadownimada dadku qofku inta uu caan yahay inta ay caannimadiisu la egtahay. tusaale ahaan haddii aad leedahay 100 qof oo ku raacsan hal cadow ayaad yeelanaysaa. haddii 1000 ku taageersan ay jiraan 10 cadow ayaad yeelanaysaa. haddii 1 milyan uu ku taageero 10,000 oo cadow ayaad yeelanaysaa. boqolkiiba hal meesheeda bay joogaysaa. boqolkiiba 2 meesheeda joogaysaa. boqolkiiba 10 si kastoo ay ahaato nisbadu meesheeda joogaysaa. laakiin dib ayaan ka ogaaday arrintu inay sidaa ahayn. haddii aad fiiriso siirada nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam markii uu bilaabay diinta islaamka fidinteeda ugu horreyn 5 qof ayaa raacsaneed wax cadow muusa lahayn. 50 kadib 100 wax cadow muusa lahayn. laakiin markii ay bilaabatay in muslimiintu bataan markaas ayaa cadaadisku iyo cadownimadu bateen. haddaba maanta qofka ugu caansan adduunka waa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. xitaa Michael Hart xitaa haddii la waafajiyo dadka aan muslimiinta ahayn
qofka ugu caansan ee loogu aqoonsi badan yahay caalamka waa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam. maanta haddii aad ogtahay waxaa jira 1.8 bilyan oo muslim, laga yaabee 100 milyan oo kale, laga yaabee dad aan muslimiin ahayn inay jecel yihiin nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam. waxaa suurtagal ah xitaa inaad dhahdo 2 bilyan oo muslima ayaa jecel nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam, balse kuwa ka soo horjeeda nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waa ay ka badan yihiin 2 bilyan. waa sababka caanimada, nisbada iyo xaddiga dadka cadowga ah waa isii badanaysa.